guddida heer qaran ee uu diyaargarowga iyo kahortagga xanuunka COVID-19 oo uu shirgudoominaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna guddoomiyaha guddida mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa shir iskugu yimaadeen waxay kaga hadleen khatarta xanuunka COVID-19 oo sii kordhaysa iyadoo 3 qof oo cusub laga helay xanuunkan gudaha Soomaaliland waxaanay gabagabadii guddidan isla qaateen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xakameynayo faafidda xanuunka COVID-19 bulshada dhexdeeda waxaanay soo saareen qodobo ka kooban 10 qodobka koowaad guddidu markii ay diristay qodobka 6aad ee qoraal tala soo jeedin ah oo culimada Soomaaliland ay soo saareen 4 Abriil ee sanada 2020 kuna aadanaa ka hortagidda cudurka COVID-19 una dhignaa in shareecadeena Soobani ay banaynayso ummadda in jimcaha iyo jameecaadka laga maqnaan karo haddii la helo lana xaqiijiyo daruuro adag sida xanuuno faafa iyo wixii la mid ah iyo baaqyada bahda caafimaadka Soomaaliland ee ku aadan xanuunka COVID-19 waxaanay guddidu bulshada Soomaaliland fareen inay masaajidada ka maqnaadaan muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 15 bisha Abriil ee sanada 2020 ayna ku tukadaan guryahooda si looga bogsado faafidda xanuunka COVID-19 mu'addimiinta masaajidda waxaa la farayaa inay eedaanka salaadaha ku daraan guryihiina ku tukada qodobka labaad waxaa muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 18 bisha Abriil ee sanada 2020 lagu daray waqtiyadii ay sii xidhnaan doonaan dhammaanba goobaha waxbarashada ee dalka qodobka saddexaad waxaa xidhnaan doona xadka dhulka ee Soomaaliland ay la leedahay dalalka Itoobiya, Djibouti iyo Soomaaliya inta khatarta xanuunka COVID-19 ay wax iska bedelayaan waxaana ka soo gudbi kara xadadka waxyaabaha daruuriga sida raashinka, shidaalka, daawooyinka, agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsi ee kala duwan qodobka afraad dhammaanba marsooyinka Soomaaliland way xidhnaan doonaan marka laga reebo dekada Berbera oo ay ka soo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka, agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsi ee kala duwan qodobka shanaad waxaa la farayaa mulkiilayaasha iyo wadayaasha basaska dadweynaha adeegsadaan ee ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn dhexdooda inay dhimaan kala bar 50% rakaabkii ay qaadi jireen laga bilaabo 15 bisha Abriil 2020 inta laga xaqiijinayo in xanuunka COVID-19 uu dalka ka baxay qaabka basasku ay dadku u qaadayaanna waxa uu noqonayaa baskii qaadi jiray 30 qof waxa loo ogol yahay inuu qaado 15 qof baskii qaadi jiray 15 qofna waxa loo ogol yahay inuu qaado 7 qof qodobka 6aad laga bilaabo 15 bisha Abriil 2020 gaadiidka yaryar ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya waxa loo ogol yahay inay qaadi karaan rakaabka loo qoondeeyay oo asidan gaadiidka loo yaqaan fitista waxa loo ogol yahay inuu qaado 1 qof oo rakaab ah gaadiidka loo yaqaan probogoskana waxa loo ogol yahay inuu qaado 2 qof oo rakaab ah halka bajaajtana loo ogol yahay 1 qof oo rakaab ah qodobka 7aad laga bilaabo 15 bisha Abriil ee sanada 2020 dhammaanba basaskii qaadi jiray rakaabka ee u kala safri jiray gobolada dalka waxaa la farayaa inay dhimaan kala bar 50% rakaabkii ay qaadi jireen inta laga xaqiijinayo in xanuunka COVID-19 uu dalka ka baxay qaabka basasku ay u qaadi karaan rakaabkooduna waxa uu noqonayaa baska 60 qof qaada waxa loo ogol yahay inuu qaado 30 qof baska 30 qof qaadana waxa loo ogol yahay inuu qaado 15 qof baska 15 qof qaadana waxa loo ogol yahay inuu qaado 7 qof qodobka 8aad qiimaha lagu raacayo gaadiidka iman kara waxa isla jaan goynaya maamulada gobolada iyo degmooyinka iyo iskaashtada iyo mulkiilayaasha gaadiidka dadweynaha si dhaqso ah qodobka 9aad dhammaanba dadka ajnabiga ee aan haysan sharci ay dalka Soomaaliland ku joogaan waxa lagu wargelinayaa inay dalka ka baxaan muddo ku dhan 5 cisho gudahood oo ka bilaabmaysa 15 bisha Abriil ee sanada 2020 qodobka 10aad waxa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in ciddii u hoggaansami weyda dhammaanba go'aamada ka soo baxay guddida heer qaran ee uu diyaargarowga kahortagga xanuunka COVID-19 inay mutaysan doonaan ganaax iyo xadhig